ninkan waxaa loo magacaabaa Martin waana mid ka mid ah gaangistarada ugu weyn magaalada kadibna waxa uu la soo koray baaskolo tareenka isagoo ku qabtay labada nin kuna yiri keena boorsada aad wadataan isla markiiba nimankii boorsada ay u dhibayeen ninkan Afrikaanka ayuu fiirinayaa halkan fadhiya waa una ka shaki qabaa security-guna waxa uu gaafureegayaa tareenka dhexdiisa boorsada ay u fureen kadibna waxa uu kala soo baxaya dollarkii ku jiray oo dhan iyo diamond aad u yar mar kale Martin ninkii ayuu fiirinaya Afrikaanka ninkii maalqabeenka ayuu istaajinaya waxa uu kala baxaya jaakadii uu sitay Martin isla markiiba jaakadii ayuu xiranaya waxa uu ka baxaya xagga sare ee tareenka security-gan ayaa aad u qaylinaya waxaana la soo baxaya baaskooladiisii askarigan telefoon ayuu diraya waxaana leeyahay tareenka la istaajiyo Martinna waxa uu doonaya inuu baxsado ilaa markii dambe askari uu soo koray kadibna waxa uu kaga dajiyay tareenkii xabad tareenkii waa uu istaagay booliskina waxay baarayaan dadkii laakiin Martin mar hore ayuu ka degay tareenka waxa uu fiirinaya ninkii Afrikaanka ahaa isagoo aad uga shaki qaba ninkana waa isaga tagaya booliska waxay baarayaan qaabkii ay dhacdadu u dhacday iyo sida uu baxsaday ninkan kadibna waxay ka fiirinayaan CC kamerada markii uu baxsaday laakiin wax tafaasiil kama aysan helin wajigiisna ma aysan garan habeennimadii Martin waxa uu yimi Islaantan waxa uu doonaya inuu ka gato diamond-kii uu soo dhacay waxa gudaha u soo galaya ninkii Afrikaanka ahaa oo qori sita waxaana lagu magacaabaa Ripley isla markiiba Martin waa uu booday waxaana isku qabteen baaskoolad islaanta horteedii isla markiiba Ripley waxa uu la hadlay Martin waxa uu ku leeyahay in wada hadalna ayaa rabnaa waa uu ka aqbalay Martin Ripley way soo raacayaan iyagoo wadada socdaya waxa qabanaya gaangistarada magaalada kadibna ay qaraacayaan waxayna ku leeyihiin waa inay bixisaan cashuurta gaangistarka weyn ee magaalada Martin waxa uu yimi gurigiisa isagoo tirsanaya lacagtii uu ku soo gatay diamond-ka habeennimadii waxa ay kulmayaan Ripley waxa uu sheegay Ripley inuu aad uga helay qaabkii uu tareenka uga baxsaday iyo xirfadiisa gaarka ah waxa uu ku leeyahay waxa rabaa inaan kula shaqeeyo waa uu ka aqbalaya Martin waxa uu leeyahay waa wada shaqeynayna Martin waxa uu imaanaya saaxiibadii Alexander oo suuqa joogta waxayna tusaysaa qaabkii uu baxsaday isla markiiba Ripley ayaa u yimi Alexander ayuu la hadlay laakiin waa uu shakisan yahay Martin waxa uu ka shaki qabaa qaabka ay isku barteen labadan qof iyo sida ay isu yaqaaniin isla markii Ripley waxa uu sheegayaa in gabadhan Alexander uu dhalay gaangistar aad u weyn oo magaaladan ku nool Ripley iyo saaxiibkii Martin waxay yimaadeen meesha madxafka kadibna waxa uu ku leeyahay halkan waxa yaala diamond aad u qaaliya waxaan rabnaa inaan dhacno si aan lacag badan u helno hal xabo kamid ah waa 20 milyan oo dollar Martin saaxiibkii ayuu siinaya coin-kan kadibna waxa uu imaanaya saaxiibtii oo ku jirta shaqada waxa uu keenaya ubax aad u qurux badan waxa uu leeyahay caawa waxaan rabaa inaan kugu casuumo kalaabka ugu weyn magaalada dhanka kale booliska waxa uu ku jira baaritaan waxa uu ogaaday xogta sheegaysa in laba nin oo lagu kala magacaabo Ripley iyo Martin ay doonayaan inay dhacaan diamond-ka ku jira madxafka Martin waxa uu joogaa kalaabka waxa uu sugaya saaxiibtii ilaa ay u timi saaxiibtii Alexander halkan ayay waqti qaadanayaan kadibna waxa uu sheegayaa qorshaha ay damacsan yihiin oo dhan aroornimadii ayaa Ripley waxa uu imaanaya saaxiibkii Martin kadibna waxa uu ka kicinayaa hurdadii Martin waa uu yaabay waxa uu fiirinayaa saaxiibkii Ripley waxa uu ku leeyahay dharkaaga soo xiro soo bax Martin iyo saaxiibkii waxay sameeyeen forger been ay ku galaan xafladda caawa ka dhacaysa madxafkan aad ka weyn Martin waxa uu soo qaadanaya kaamiradan si uu ugu xiro mid kamid ah maalqabeenada halkan jooga boolis ayay soo dhigeen dharkii booliska ayay soo xirteen kadibna waxay gudaha u soo galeen xaruntii Martin waxa uu kaamirad ku dhajiyay mid kamid ah maalqabeenada halkan joogay si uu ogaado waxayna doonayeen inay ogaadaan wada kasta oo loo maro diamond-kan kadibna waxay jeegaranayaan xaruntii ilaa uu markii dambe u yimi ninkan booliska kuna yiri maxaa tihiin tusa kaararkiini isla markii Ripley ayaa la hadlay waxa uu ku leeyahay waxaan ka tirsanahay booliska laakiin waxa uu sheegay ninkii sarkaalka inuusan xogtooda ahayn ayna waajib tahay in halkan isaga baxaan Martin iyo saaxiibkii Ripleyna way ka soo baxayaan xaruntii kadibna waxay imaanayaan qolkan halkan ay isku qarinayaan waxayna dib u jeegaranayaan kaameradii ay ninka maalqabeenka ku xireen ninkii maalqabeenkana waxa uu galayaa meesha uu yaala diamond-ku teleefankooda ayay kala socdaan maadaama ay kaameradu ugu xiran tahay waxayna ogaanayaan ilaa meesha ugu dambeysay uu yaala diamond-ku si ay u fududaato inay u dhacaan diamond-ka halkan yaala wadooyinkii oo dhanna waa ay fahmeen Martin iyo saaxiibkii Ripley way soo raacayaan kadibna Martin ayaa waxa uu iska dhigay sidii qof kufay ilaa uu ku dhacay ninkii maalqabeenka waxa uu ku daadiyay sharaabkii uu sitay isagoo iska dhigay inuu ka tirtirayo laakiin waxa uu ku soo furanaya kaamiradiisii ninkan askariga waa uu shakiyay kadibna waxa uu la hadlay askartii ilaalada banaanka taagneed waxaana laga qaadayaa Martin iyo Ripley sawiro waxa loo soo gudbiyay xogtoodii sirdoonka kadibna askarigan ayaa u sheegaya in Martin iyo Ripley doonayaan inay dhacaan xarunta laakiin sarkaalkii ciidanka haystay dhag u dhigmay arrintaas waxa uu qabaa inay tahay arrin iska yeel ah suurtagalna aan ahayn Martin iyo Ripley waxay dib u daawanayaan kaameradii waxay u duubtay ninkan jimta ciyaaraya waa ninkii maalqabeenka gacantiisa ayuu ku furmaa khasnadan aad ka weyn mishiinka ayuu ka degay isla markiiba Martin ayaa yimi waxa uu plastigan ku dhijinaya gacantiisa si uu gacantiisa uga helo scan xaruntii ay yimaadeen Ripley iyo saaxiibkii waxayna rabaa inay mishiinkooda fuliyaan caawa waxay calaamadsanayaan meeshii ay ka gali lahaayeen iyo wadooyinka ay rabaan inay maraan si ay u gaaraan diamond-kan meesha uu yaalo Martin waxa uu yimi gurigii saaxiibtii kadibna waxa uu diyaariyay cuntadan laakiin waxay oranaysaa ma cuno cuntada Chinese-ka waa inay ka diidaysaa inay la cuntayso halkan ayay waqti u qaadanayaan habeenkii waxa uu sheegayaa mishinka ay damacsan yihiin berri Ripley iyo saaxiibkii oo halkan taagan ayaa waxa soo weeraray nimankii gaangistarada ahaa kadibna waxay afduubteen Martin saaxiibtiisa Alexander gaangistaradii waa ay soo kaxayeen Martin iyo Ripley waxaana u keenay gaangistarka haystay magaalada uu soo istaagay ninkii waxa uu ku leeyahay waa inay keentaan diamond-kaas haddii kale waa dilaya Alexander Martin dooqasho kala ma haysto waxa uu ku khasban yahay inuu saaxiibtii badbaadiyo Martin iyo Ripley way ka soo tageen ninkii gaangistarka waxaana rabaa inay mishinkoodii
fuliyaan. Waxay yimaadeen meeshii ay calaamadsadeen iyagoo mishiinadan soo qaatay si ay u dalooliyaan dhulka. Halkan ayay rabaan inay ka galaan ilaa ay markii dambe dhagaxan soo jabiyeen. Isla markiiba sanqadhii waxaa maqlay ninkan oo ah ninka CC kaamirada jooga, wuxuuna leeyahay hoos ayaan ka maqlay cod. Martin iyo saaxiibkiina gudaha ayay usoo galeen xaruntii, waxayna guda galeen hawshoodii. Isla markiiba mid ka mid ah security-ga CC kaamirada ayaa gudaha usoo galay meeshii cod ka maqlay. Ilbaabka ayuu furay, waxauna arkay in saacadna joogin. Kadibna waxa uu wargeliyay saaxiibadiisa oo ku yiri wax dhibaato halkan kama jirto. Ilbaabka ayuu damcay inuu iska furo ilaa markii dambe Martin iyo saaxiibkii Ripley ay qabteen ninkii. Waxa uuna u noqday Janice, waxay ku furanayaan dhammaan wiishashka ka xirxiran oo dhan si ay u gaaraan khasnada. Kaarkiisa ayay ku furteen meel kasta ilaa ay markii dambe ku dhaheen la hadal saaxiibadaadii CC kaamirada una sheegeen in halkan dhibaato ka jirin. Sharooto ayay meel walba kaga dhejiyeen, waxayna ku xirxireen kursigan. Martin iyo saaxiibkii waxay gudaha usoo galeen albaabkii ugu dambeeyay ee Diamond ku jiray. Kadibna waxay dhigteen qalabkoodii, waxay fiirinayaan kaamirooyinka meesha ku xirxiran. Security-ga CC kaamiradana waa iska cunteynayaan. Martin iyo saaxiibkii gudaha ayay usoo galeen, waxayna dhigteen boorsooyinkoodii. Isla markiiba Martin waxa uu gashtay gloves-kan oo ku diyaarsaday iskaankii ninkii wajinta kaga soo qaaday, waxaana saaraya halkan si albaabku isku furo. Nasiib wanaag waa ay ku guuleysteen, albaabkii ugu horeeyay waa is furay, waxayna gaareen khasnadii. Inta ay khasnada gaarayaan waxay u baahan yihiin inay gaarigan fuulaan, inay gaarigan yarka istaaraan si uu shafka u saaro Martin, maadaama laser aad u halis badan uu ku xiran yahay meesha, khatarna ay tahay haddii uu mid ka mid ah taabto in jirkiisa uu googo'ayo. Ripley waxa uu ka waardiinaya saaxiibkii inuu khalad yar ku dhaco. Gaariga ayuu shafka soo saaray Martin, waxa uuna u socdaa si degan, mana doonayo inuu mistake yar galo. Nasiib wanaag way ku guuleysteen inay gaaraan khasnadii, waxayna hadda isku dayayaan inay jabiyaan khasnada. Qalabkoodii oo dhan ayay la soo baxeen si ay khasnada u furaan. Booliska magaalada ayaa xogtii helay, waxayna ku soo socdaan xaruntii si ay u badbaadiyaan. Halka Ripley uu gelinayay passwordkii ugu dambeeyay khasnada si ay u furanto. Nasiib wanaag khasnadii waa u furantay. Ripley iyo Martin waxay gudaha usoo galeen xaruntii oo ku jiro dahab aad u fara badan, diamond, ilaa markii dambe Martin oo arkay boxkii loo soo diray ee diamond ku jiray. Isla markiiba baaskoolada ayuu ku qabtay saaxiibkii, waxaana ku leeyahay isdhaqaajin haddii kale waan ku dilayaa. Boorsadii diamondka ayuu qaatay, Martinna waa iskaga baxsaday meeshii. Booliskii magaalada oo dhan ayaa isugu yimi, waxaana la adkeeyay ammaanka xarunta si aysan tuugadu uga baxsan. Askartii CC kaamirada ayaa arkay ilbaabkan si kadiisa isku furay, kadibna ninkan ayaa kusoo dhaqaaqay, waxa uuna soo galay ilbaabkii ilaa markii dambe Martin oo xagga sare kaga yimi, kadibna uu baaskoolad ku qabtay. Dhammaantood baaskoolada ayay la soo baxeen security-gii gudaha ku jiray, laakiin waxa uu ku leeyahay hubka dhiga haddii kale waxaan dilayaa saaxiibkiin. Dhammaantoodna baaskooladii waa ay qubeen ilaa markii dambe Martin uu ku guuleystay inuu xaruntiisa ka baxsado isagoo nabad qaba. Booliskii iyo sirdoonkii waxay gudaha usoo galeen xaruntii. Martin waxa uu tagay nimankii gaangistarada isagoo boxkii wada, waxaana ku leeyahay tusa saaxiibtii Alexander. Waa la tusay, laakiin waxa uu codsaday in dhinaciisa ay soo istaagto kadibna la fasaxo si uu boxka ugu wareejiyo. Martinna waa uu ku wareejiyay diamondkii. Booliska waxay qabteen Ripley, kadibna waxa uu ku yiri wax cadayna uma haysataan, mana garanayo cidda dhacday diamondka. Ninkii gaangistarka aad ayuu faraxsan yahay, waxaana loo keenay diamondkii uu muddada badan raadinayay. Mar kale booliskii waxay soo qabteen Martin, waxayna ku leeyihiin sida wax u dhaceen. Waxa uu sheegay in arrinta lagu khasbay. Kadibna sawirradii gaangistarada ayay tusayeen, waxayna ku leeyihiin waa kee. ilaa uu markii dambe tusay oo yiri ninkan ayaa igu khasbay inaan diamondka dhaco. Laakiin booliskii waxa uu sheegay ninkan inuusan ahayn gaangistarka rasmiga ah, laakiin uu yahay saaxiibkii. Victorna uusan dhiman ee uu weli nool yahay. Ninka isaga u soo diray diamondkana uu u shaqeeyay saaxiibkii Ripley, una yahay gacan yarihiisa. Martin madax ayuu qabsanayaa maadaama uu saaxiibkiis lahaa waa khiyaantay ka hor inta uusan isaga khiyaamin. Gaangistarka rasmiga ahna waa Ripley, waxaana kala shaqaysay kiiskan Martin saaxiibadii Alexandra. Private jet ayuu qaatay, waxa uuna u socdaa New York isagoo aan wax dembi ah lagu helin, halka dembigii oo dhan uu ku cadaaday Martin. Daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Tan iyo inta iskaga imaan doona muuqaalka xiga, waxaan kaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.